halkan aad u jeedaan waa waqooyi bari Kenya qaasatan ismaamulka Mandera maalmaha ugu dambeeyay ayaa cabasho ka qabeen dhinaca jaadka ama qaadka sidaad u taqaanaan qaasatan dadka ka beec mushtaraysto markii ay gawaarida Kenya jireen caqabado weyn kala kulmeen jid la'aan awgeed oo jaadkii jid u soo maray la waayay maalmo dheer kadib ayaa gawaaridii jidka u furmeen sida u jeedaan jidkii uu furmay dadka beecsharadeedu isku soo noqdeen beecsharadii sidii hore hadda ku soo noqotay wax faahfaahin dheer naga siin doono dadka ka beec mushtareystaan qaadka kusoo dhaw barnaamijka Kulan Post maxaa saameyn weyn ah kula kumtay tan iyo waagu jidka go'ay oo qaadka gawaarida ay keeni waayeen oo diyaarad iyo waxa maalmaha dambe qaadka diyaarad baa keenaysa la yiri bal maxaa caqabad kala kulantay walaal horta magacaygu waa Sahil Boya anagoo jaad ii saarnaan jiray baawur diyaarad markay baawur la waayay diyaarad jaad u keenish bilowday khasaarad iyo marxalad aad u weyn baa ula kulnay waayo waa jaad safranayo jaad meel walba kala aadayo xuduud dhan u kala aadayaan waayo wax gubtay iyo wax kale ilaa diyaaradan laga dhiibay waxa qaal ah balse hadda maadaama baawurteena iyo waxayna ay noo soo laabteen hadda muhiimadan suuqeena ugu jeedna alxamdulillah suuqu noo furfurmay ganacsiga sidiisa hore isku soo celiyay waxa qaali wax ay gubtay wax kale la dhahay malaha ما شاء الله هذا الحمد لله ما أنتوا إسكفارنا يصير سوق كمية بوليشن كيس هذا الحمد لله وإسكفي كل شقيستان كبروبا كوقبسدان ماركة إيدو ساسة بابوركا أنا لا جاجي قرش في حنا أنا لقيه بابورك إيدو سافس كيس أو كلين أو سبل أو معناه مركو إما دقيقة هورنا كسيلابتو أو وحي نوسي دياره أو قاتك وعبنا علد نو قارن أنت karibu kwa Kulan Post. Nilikuwa napenda nikuulize kwamba Mira mbeleni magari ndio ilikuwa inaletanga na saizi naona nilisikia ndege ndio ilikuwa inaletanga. Sasa nilikuwa nataka nijue kwamba tofauti ya ndege na gari nilikuwa nasikia Mira ilikuanga rahisi na ndege bei yake ilikuwa juu. Hebu nieleze venye ilikuanga na hiyo biashara ya ndege ikileta Mira. Kama jina naitwa Caroline. Mira ya ndege ilikuwa inatucost na si watu wote walikuwa na afford ndege, lakini mira ya gari kila mtu ana afford na kila mtu mira yake inamfikia. Kwa mimi naweza sema mira ya gari iko sawa na Mungu atabariki tu tuendelee barabara zikuwe sawa, mira iendelee kuja na gari. Sababu ndege yake hapana ilikuwa inatuingia paka sisi inabidi tutoe pesa yetu kwa mifuko ndio tuweze kupata hiyo mira. Lakini kwa saa hii hakuna mtu amekosa mira na tuko sawa na gari So mngependa iendelee na gari na serikali unaomba wasaidie wananchi watengeneze njia za kukuja na hizo magari. Serikali ningeomba itutengenezee barabara ndio kila mtu apate sana ni sidii hadda indheegada waa noo dhanta waayo indheegada waa iska keenay jaadka oo socdo oo aday lacag dirtay garona looga soo tagay inta looga soo tagay kana looga soo tagay oo cid lacag ku soo celina aan jirin ilaa haddan waayo dhibaato aad fara badan baa kala kulnay haddan dhibaatadaas maadaama anagu soo adkaysanay oo soo calo xirnay hadda maadaama baawurteena ay bilowdeen waa alxamdulillah maanta waan ku mahadsananaa baawurteena labada dhinacba kusoo dhawo barnaamijka Kulan Post waxaan ku weydiinaynay caqabado nooca kala kulantay waagi ee jidku go'ay gawaarida qaadku istaagay oo diyaarad iyo wax loo bedelay adii dadka bulshada ah ka iibin jirtay qaadka maxaa saameyn nooca ku bedeshay aniga qaas ahaan magaca hadda meeshan joogo waa Baspark qaas ahaan sida oo diyaaradda macnaha oo noo haysay cilad weyn baa aan isku aragnay wixii waxa noo kala socona malaha dadkii oo customerka wax naga gadan jireen bartoodu ma uu arkayn waa naga carrayn wixii waa diyaaradda hadda sidii baabuurka noo soo laabtay dadku waan arkaynaa qofkan waa qofkii baruu maalintii wuxuu helaa 1,000 shilin 1,000 waxa waay 200 macnaha cid uu geystaa 200 konton qaad ku qaataa magaaladu ka fadhiistaa marka baabuurka sidii noo soo laabtaba xoogoo magaalada way kala socotaa baabuurka aad u baahannahay maadaama anagu wixii aan ka raasanayn oo wax yar oo xaafadan ka raasanaa diyaaradda ma aboonno habeeni dharar ma aboonno marka waxaan leeyahay waad ku maasantiin baabuurka noo soo badiyaa jidkana ma xumo maadaama roobkana ilaahay baa keenay laakiin iyadoo saasee dadka Mandera su'aalaha maanta yaala waxay tahay ka waran qaadka waagi diyaaradda keenaysay maadaama marka hore qaadka diyaaradda keenaysay jidku waxay gawaari ay keen waayeen oo hadda maadaama gawaari dib u bilaabeen
marxaladna waxaa kala kulantay waagi diyaaradaha qaadka markii Kenya marxalado weyn baa kala kulannay xaalad waxay ahayd qaadis oo qaalib u ahaa 3,500 kiilo qaadka inaagan siinaya anigana waxaan galeynay xaaladii ciidanka 700 oo dhaaya uu naga cararaya markuu naga carar wuuna ku qabnay hadda oo gawaarida ilaahay dib u soo celiyay gawaarida gudub hadday u soo noqdeen waxaan rabnaa gawaari aan jabeynin oo la duc mareynin xaaladahay sidii inoogu imaaday waxaan rabnaayoo kale maxaa la tahay inay gawaarida ay naga waxaan diyaaradda baqaadkeedana aan nimankan ay naga kala carareen farqiga u dhexeeya muxuu ahaa diyaaradda iyo gaariga diyaaradda waxaa tidhi maxay ahayd qaadka ahaa bal inoo waxay inooga fahansiiye bal sida diyaaradda qaad wuxuu ku ahaa 3,500 la dhahay gawaarida ka fiican gawaarida waxay nimanka kaama cararayaan way ku soo dhawaanayaan maxaa abaaqaadka naagadaysa qaadka 300 400 dhehena inay gadanayaan laakiin diyaaradda 700 nin aan jeebkiisa wax ugu jirin oo 700 maxaa ku gadanaya waxa kaama gadanaya waa cararaya بس إنها حتى أنا قاركنا بدي حتى واقوين ديارة مرة جوارد وحرنا جوارد حرنا ديارة ما بنقول شيء كربانا جوارد إني ما تيجي صوب ديار ريدي كديان ديارة ما بنقول شيء جوارد إني ريدي كديان جوارد مو ديار كله بنقول ما نبارنا كلهم بس هو كسر دوا ديارة ما بنقول بارك